رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحلقة كاملة حلقات كان كجور رمي جرني عمر ابن خطاب عمر أحيانا بدن بقى لقو حسوسته عمر waxaa lagu xasuustaa intuu caalamul islaami xukumay buu cadaalad ku xukumay markaas ay ilaahay qulubtii bani aadamka oo dhan jeclaysiiyay abi ubayda amir ibn jarrah ciidan uu hogaaminayo oo uu ku jiro shruxbil ibn hasan qiyaadadiisa yaa waxay furteen madiinatu quds waxaa loo tagay masjidu aqsa ninkii furihiisa haystay oo yahuudi ahaa maalintaasa loo tagay yahuudigii wuxuu diiday furaha inuu wareejiyo wuxuu yidhi furaha waxaan u dhiibi karaa cidaan nactigeeda iyo sifadeeda iyo tilmaanteeda ku aqaanay towraad idinkana idinku jirto oo waxa weeye idinka muslimiinta idinka mida laakiin aan maanta idinku jirin oo aan idinka dhex muuqanin markaan wajiyadiina eegay waxay dooneen in warkaasi cumar uu gaadho cumar baa fariin loo diray fariintii baa cumar gaadhay waxaa la yidhi ninkii yahuudiga ahaa ee qayska ahaa ee haystay masaajidka furihiisa waxa uu yidhi qofkan ku wareejin lahaa ee towraadii ii sheegtay halkan igama muuqdo cumar baa wuxuu ka soo tegay madiina wuxuu xukumaa waddan aad u ballaadhan wuxuu heli karaa ciidan aad u fara badan wuxuu heli karaa maal aad u fara badan wuxuu heli karaa fardoole iyo gaadiidka lagu safra ka ugu qiimiga badan cumar wuxuu ku soo safray hal geenyo ama baqal sida la sheego labadaba waa la sheegaa geenyay ahayd oo faras bay ahayd baqal bay ahayd oo midda dameertiya farasku iska dhalaan bay ahayd labadaba waa lagu sheegaa ahlu siyarku way ku sheegaan cumar markuu gaadiidkaa ku soo safray waxaa soo raacay hal nin oo dhalinyara cadaaladiisii lala yaabay waxay ahayd cumar markii magaaladii laga soo baxay buu wiilkii ku yidhi waxaynu ku kaltamaynaa aniga iyo adigu geenyada adiguna xilli baad geenyada saarnaan aniguna xilli baan saarnaan iyaduna xilli bay nasanaysaa buuri cumar way soo baxeen way soo socdeen in badan markay dhexda soo socdeen ood garanayso magaalada madiinaad iyo madiinatu qudus inta ay isu jiraan kumayaal mayl markay soo jareen oo ay tabcab iyo dhibaato iyo rafaad badan soo mareen yaa waxaa lagu soo aaday xilli uu geenyada saaran yahay wiilkii yaraabaa magaaladii lagu soo aaday markaasuu ihi yaa amiira almu'miniin ixraaj baan dareemayaa iyo dhibaato waxaan rabaa geenyada inaad iga dejiso adigu inaad fuusho adaa amiirkii mu'miniinta magaalada inaan saa ku tagno wuxuu yidhi rafiiq baa tahay fiican haddaadan adiga ahaan lahayn oo inaan intaa soo wada soconin hadalkaaga waan kuu garaaci lahaa sababtoo ah shay aan ilaahay wejigii u sameeyey aragtida aadamaha inaan u bedelaay way adag tahay baqasha ama geenyada saarnow buu ku yidhi geenyadii isagoo saaran baa magaaladii lasoo galay wiilkii baa saaran cumarna garku haya cumar magaaladii markuu soo galay qudus ninkii markuu saa u eegay wuxuu ku arkay qamiiskiisu wuxuu ka tolnaa 14 meelood maalka uu haystayna cumar nin racaayagiisii ka mida maalan cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu maalintu sakaraadayay furay gabadh la yidhaha tamaadir oo xaasaskiisa ka mida xaasaskuu qabay mid ka mid oo tamaadir loodhan jiray buu yuu dalaaqay cabdiraxmaan ibnu cawf shacabka cumar buuna ka mid ahaa markuu dalaaqayuu dhintay baa la yidhi xaalatu sakaraad buu furayo gabadhu dhaxalkii bay leedahay saxaabada qaarna waxay ku doodeen gabadhu dhaxalkii ma leh si aan kuu tusiyo cumar inuuna nin xoolo u baahan ahayn baan qisada kuugu keenay cabdiraxmaan ibnu cawf gabadhu waxaa la yidhi saxaabiga laguma tuhmi karo inuu isagoo sakaraada furay oo dhaxalka aad ka qadisid uu lahaa marka gabadha waxba dhaxal siin mayno waanu dhaxal siinaynaa saxaabadii markay ku murmeen baa mas'ale la yidhaahdo almukhaaraja fuqahada islaamku ay qoraan yaa soo baxday qoladii caruurtii uu dhalay iyo islaamihiisiiba u yeedhay oo waxay yidhaahdeen dhaxalkii aad qaadan lahayd nuski ha lagu siiyo dacwada iyo saxaabada in la isku jabiyo oo laynoo doodo oo la yiraahdo saxaabigii dhintay baa khaldamay iyo wuu saxnaa
aan iska dayno 4 meelood markii loo qaybiyey xoolihii cabdiraxmaan ibnu cawf uu lahaa tamaadir waxay dhaxashay juz ka mida meel 4 bay qaadatay 3 markii laga reebay bay meel qaadatay 84,000 oo diinaar oo dahab ay dhaxashay 20 kasta oo 84,000 ee diinaar ee dahabka ku jiraay wuxuu maanta ku sarrifmi karaa 1,700 oo euro oo lacagta Yurubiyaanka malaayiin dollar weeye lacag u dhiganta ayay gabadhaasi heshay cumar dadkaasuu xukumi jiray oo maal waa haystay laakiin nin zaahida buu ahaayo caabidaho cadaalad waa ninkii wiilkii dhashay ee muslimaba mushahar u qoray weeye cumar waa ninkii baytu maal muslimiin asaasay waa ninkii askarta in la diiwaan geliyo sameeyo oo mushahar loo sameeyo waa ninkii cadaaladii ugu badnayd nabi maxamed dabadi islaamka ka hirgeliyey weeye waa ninkii jabiyey dowladdii la odhan jiray الصامانية الفارسية دولة بيرشيا نيكي جبيي وي عمر وانيكي جبيي دولة الرومان أما الدولة البيزنطية نيكي جبيي إلى هاي قعنتي سو كحريي وي عمر فريه والقوريتشيي لكن مو ملايين يسا عمر هبينكي إنو نسوجيت إيا قبلو هيسا إيا حفلدو من نمونا سمينين مساجد انتو فرطي والله فري والله النذيفيي أيو وحو كل ما يهبينكي سورنا القرآن كينو أخريو إيا إنو صلاة كذو واتقعنا maanta madaxweyne markuu tago meel inuu salaad tukada iyo inuu hoteelka ka soo baxo xafalaadka iyo sawirada quruxda badan oo iska qaada wax ka badan aad la inooguma soo bandhigo laakiin Umar salaad iyo quraan iyo sujuud buu habeenkiisa ku dhamaystay wax dabaaldeg la yiraahdo ciidankiisa ma sameeyeen ilaahay bay u shukri naqeen sirada la rabo inaynu qaadanaana taawee marka waxaan ku gabagabaynaya adaalu ala alkhayr kafaa'ilihi وقدوة كغفلان رنتي إناد كضايته وآد مرول بإلهي وينيسو إلهي با كوين عدكستو ويني اسبدا سبحانه وتعالى وانا تربية دي لقاقاتي صحابة وتربية الإيمان والإخلاص والتوحيد وقفك مسلم كي قلبك إنو كهي اللوبة هي وقدوة صالحة إنو كضاينا للربو وسلفنا الصالح وقفا ليلو بكرين عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنام المعالي على طرفه وتصحو على صوته في السحر